waxaan rabaa in aan update-kii kala qaado sidii xaaladda coronavirus maray inaan idin soo jeediyo xalay kiisaska xaaladaha waxay marayeen 25 shalay kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta kaliya marka lagu daro 25kii oo shalay 57 ayay noqonaysaa iyo 3 case oo shalay looga dhawaaqay Soomaalida waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaaliya ka jira laba qof waa naga geeriyooday Allah u naxariisto laba way ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad Ilaahay u siiyo sidaad la socotaan cudur faafka waxa ku jira si xawli ay u socdaan bulshada waxa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan inay qofta neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qofa labada calaamadood ugu horeysa haddii uusan qofka qabin waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan iyo qofta ay neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94 labadaas haddii uu qofka qabin waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro haddii lacala xaaladiisa ay xooga isbedesho oo inuu dhigtoodo markaas la soo waco numbarka uu soo waco ama isbitaalka ugu dhow oo tago kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaalada la geeyo haddii alla